maanta ay tahay 20 bisha toddobaad inay ku asteysan tahay dabaaldega ciyaarta shatranjiga aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo anigoo ah ciyaartoy Soomaaliyeed. ciyaarta shatranjigu waxa waa mid farxad gelisay markaan bartay ibadashay qaabka habka dhinac walba adil every side hada fiirsid wax badan ay ku duwanta ciyaarta kale ciyaartan waxay ku keenaysaa aqliga iyo kartida iyo fahanka. jeclaystay in dad da'yar oo dhalinyaro iyo dhiiriisa in la soo saaro inay na bedelaan loo soo saaro in ayaga shakhsiyadooda ay helaan macnaha qiimeen qof walba wuxuu leeyahay waxyaabo oo khaas u ah oo iska jecel yahay marka macnaha dhalinyarta waxaan u abuuraynaa mustaqbal ay ku jeclaan ku dooranayaan qayb ka mid ah sportskooda ilmaha miisaan ay leeyihiin horta xagga akhlaaqda hataa waxbarashada hataa maskaxdooda aad ay u dhistay guriga hataa nolosha guriga yani gabdho waaye waxaad ani ii barto wiilal iima baranin gabdhaha iyagu waaweyn meeshu ii yaryaryihiin laakiin waxaan yani ku arkay isbeddel weynaan ku arka oo ah hataa xagga guriga inay kala dambeeyaan. meesha ka soo bilaabatay magacii Katurungi la dhihi jiray waxa loo bedelay shatranji hadda waxa aad looga dheelaa bariga Yurub iyo America waxaana la magaceeda chess faa'iidada leedahay qofka chess ka barta wuu ka aragti dheer yahay qofka